Maanta waxaan rabaa in aan nila wadaago faa'iidooyinka ku sugan in aad baxsato sadaqada. Waan ognahay in ay sadaqada ka mid tahay shanta tiir ee Islaamka. Ilaahay baa na og in aan anaga baxsano sadaqada. Wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiri wa iitaa'i zakaat. Sadaqadu waxa ay ka mid tahay shanta tiir ee Islaamka. Marka wixii ay sadaqadana ku xigtaa salaada waxa ku xigo sadaqada. Sadaqadana waxa ku xigto soomka. Soomkana waxa ku xigo xajka. Okay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halka aad toos noo socoto waa janalka bulshada ee ST11 oo laga soo gaabiyo Soomaali Tijaab 11. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka ku sugan sadaqada in aad baxsato. Muuqaalkeena maanta ma sii dheerayn doono ee muuqaalkeena la soco una sii gudbi asxaabtaada si ay naga mid noqdaan familkan quruxda badan aan halka ku saaxiibnay. Nambarka koowaad haddii aan soo qaato faa'iidooyinka sadaqada sadaqada waxa ay qaboojisaa carrada Alle. Waa sax sadaqada haddii aad baxsatid waxa ay qaboojisaa carrada Alle. Ninkii Ilaahay ka xanaajiyo asiga adduunka maxaa u yaal waa maya haddii aad dambi gashay Ilaahay uu ka caroodimaho qadi wallahu calayhi quraanka ay ku jirtaa qadi wallahu calayhi wa la'anahum wa a'adda lahum 'adaaban 'aziima. Ilaahay hadduu ka caroodo naclad haday ku dhacdo cadaabka cadiim ayaa galaysa. Marka adigoo saas haddii aad la baxdid sadaqada Ilaahay carradiisa way qabooweysaa. Sadaqadu waxay qaboojisaa carrada Alle. Waa number 1. Lambarka labaad sadaqadu waxay ku sugan tahay runtii waalidka in aad u ixsaan sameyso. Sadaqada ma aan kaliya waxa baxsato sadaqadu waxa ay tahay in aad waalidka u degan nuglaato waalidka in aad ku noqonin caas waalidiin waalidka inaad maxaa la dhihi jiray wixii rabaan u soo qabato. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri waqdaa rabbuka alla ta'budu illa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana. Labada waalid ee ku dar u ixsaan samey waxay ka mid tahay sadaqada. Labada waalid oo ku daray u ixsaan samey waxay ka mid tahay sadaqada. waa lambarka labaad. Lambarka saddexaad haddii aan soo qaado waxay noqonaysaa qofka weyn in aad ixtiraamto waa sadaqo waana faa'iido. Qofka ka weyn in aad ixtiraamto waa faa'iido. Nambarka saddexaad qofka ka weyn in aad ixtiraamto waa faa'iido. Lambarka afraad ee ku sugan sadaqada waxa ay tahay in waxii aad la baxday wax ka qeyr badan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku siinayo. Intaas ayaan ka soo qaadanaynaa faa'iidooyinka ay leedahay sadaqada. Fadlan aniga nafteyda iyo naftiinaba waxaan dhiirigelin u sii lahay in aan la baxsano sadaqada. Sadaqada waxyaabaha waxa ay ka mid tahay waxyaabaha lagu gaaro waxyaabaha lagu gaaro jannada ay sadaqada la mid tahay. Walaal qof maskiin ah oo wax haysanin haddii aad wax siiso oo qofkaas uu farxo ajirkiisa iyo ajirkaada ayaa qaadanaysa. Walaal waxaan la baxno sadaqada. meeshaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni haddii aad xiisaynayso fadlan muuqaalkan like saar. Like-ta waxay noo tahay dhiirigelin waana ku mahadsan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.